السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وناكسن داوديال قضبضة وراركا ورقاتي في وصوماليا إذن كغاهينا وحا كامدا صوماليا oo heshay fursad qaali ah oo ay markaasi 10 ugu dhigi karto dalka Kenya dawladda Soomaaliya oo diyaarisay qorshe ay kula heshiinayso xarakada al-shabaab oo dagaalka la soo horjeeda ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobada kale aanu idin hayno waxa kamida wasiir Cawad oo fariin uu ka sida madaxweyne Farmaajo ka jeediyay shirweynaha wadatashiga Puntland ee maanta ka furmay Garowe madaxweynaha Puntland oo si adag uga hadlay khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya maamulka Puntland sanad military oo aad u fara badan oo ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya oo ka mamnuucday in ay dalka soo galaan dadka ka imaanaya afar dal و15 bisha saddexaad ee Maarso maalinimo ahada sanadka 2020 daawada haday ku tahay markii kugu horeysay subscribe channelkeena sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawada koowaad ee hela akhbaarta ugu waaweyn caalamka iyo Soomaaliya aan ku bilowno Soomaaliya ayaa haysata fursad qaali ah oo ay 10 uga dhigi karto dawladda waydan dambe aynu isaynay ee Kenya ee dariskana la ah dawladda Kenya ayaa sheegtay in daqiiqadii ugu dambeeyay ay baajisay kulankii saddex geesoodka ahaa oo u dhaxayn lahaa dalalka Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku qabsoomi lahaa magaalada dekada leh ee Mombasa waxaana sababta ugu weyn oo kulankaas u baaqday ay tahay sabab la xiriira cudurka coronavirus oo soo gaaray dalalka dariskana la ah ee Kenya iyo Ethiopia wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ayaa sheegtay in kulanka loo hakiyay duruufo aanay markaasi iyadu faragelin karin sida darteedna aanu dhici karin shirkii horey loo qoondeeyay ama loo agaasimay haddaba Soomaaliya ayaa iyaduna waxa ay haysataa arrimo kale oo aysan cidna ku eedin karin ama baysan ku eedoobi karin waxaana ay si dadban Kenya u tusin kartaa muhiimadda dhaqaale ee ay Soomaaliya leedahay iyadoo ay ugu yaraan si kumeel gaar u hakan karto qaadka Soomaaliya loo dhoofiyo oo malaayiin shilinka Kenya ah ay dawladda Kenya ka hesho jaadka ama qaadka oo ay soo guraan dad markaasi iska danyar ah isla markaana aan lahayn habraac caafimaad oo ay ku shaqeeyaan ayaa gacmo badan isku mara iyadoo oo ay dad badani ku hindisaan ku qufacaan ama markaasi gacmo wasaq leh ay ku qabtaan taasoo ka dhigan in xitaa hadii aanu virusku wadan in ay hooy markaasi jeermisku u noqon karaan Soomaaliya ayaa iyadoo oo daliishanaysa caabuqa coronavirus oo ay Kenya lafteeda shir caalami ah u baajisay waxa ay haysataa Soomaaliya fursad weyn oo ay waaqici ah oo ay Kenya wax ku tusi karto sidaas darteed dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dawladda federaalka Soomaaliya u soo jeedinaya inay hakiso qaadka ilaa iyo amar dambe inkastoo ay jiraan dad badan oo Soomaaliya oo ka ganacsada haddana waxa badan dhibaatada uu qaadku ka hayo gudaha dalka Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya waxa u dhaxeeya qadiyada adag oo waaweyn kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ay ka midaysan yihiin Kenya waxa ay qaaday bariyihii ugu dambeeyay tallaabooyin dawladnimadeena ka soo horjeeda sida in ay taageertay maamulka Axmed Madoobe oo dawladda federaalka Soomaaliya aysan aqoonsaneyn in lagu dagaalamay xuduudda labada dal u dhaxeeya oo ay ciidamada Kenya dagaalkaasi qayb ka noqdeen waxa sidoo kale jira in Kenya ay damac waliya wado oo ay ku doonayso in biyo Soomaaliyeed ay qaadato ama bad Soomaaliyeed ay dhacdo halkaas oo qeyraad fara badan oo dhaxalka awooyaashan inooga tageen ah ay doonayso in ay qaadato dawladda Kenya waxa ay Kenya geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysaa in dalalka caalamka ay ka dhadhiciso in Soomaaliya kiiska badda ay ka soo celiso maxkamadda Hague isla markaana wada hadal wax lagu dhameeyo dawladaha arrimahaasi garowdeynka ka waxa kamid ah dalka Mareykanka oo cadaadis ku saaray labada dhinac arrintan iyo sidoo kale dawladda Ethiopia inkastoo Ethiopia iyo Muqdisho ay saaxiib yihiin waayadii dambe haddana waxa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu dhowr jeer hordhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalabyo ku aadan in Soomaaliya wada hadal ay ka gasho arrimaha badda ee ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ninka mucaaradka weyn ka ah wadankaasi Kenya ee la yiraahdo Raila Odinga oo ay Uhuru Kenyatta aad isku neceb yihiin ayaa dhawaanta qoraal soo dhigay waxa uu ku sheegay in qadiyada badda ay u dambeyn doonto magaalooyinka kala ah Nairobi, Washington iyo caasimadda dalka Norway ee Oslo isla markaana dadka Soomaaliyeed ay faqri ku sii jiri doonaan mustaqbalka sida uu hadalka u dhigay halkaas aad naga daawanaysaan waa channelkeena Warqa TV wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ayaan idiin soo gudbinaynaa oo aad daawanaysaan
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu waramayaa inay diyaarisay qorshe ay kula heshiinayso xarakada al-shabaab iyadoo dhawaan magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar uu ka dhacay heshiis ballaaran oo ay kala saxdeen kooxda Taliban iyo dowladda Mareykanka ayaa haatan waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya iyo xarakada al-shabaab ay gali rabaan heshiis xabad joojina arrintan ayaa waxaa la sheegaya inay garwadeen ka tahay dowladda Qatar oo markaas doonaysa in al-shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya markii ugu horeysay ay miis wada fariisiso isla markaana ay saxdaan heshiis xabad joojina dabayaaqada sanadkan ayaa la sheegayaa in arrinkaas haddii ay suuro gasho ay dhici karto dowladda Qatar oo taageerto dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay ku lug leedahay dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha xarakada al-shabaab isla markaana ay awood u yeelan karto inay isku geyso labada dhinac oo ay suuro geliso in kulan markaasi ay isugu hor fadhiisanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab ay qabato al-shabaab waa awoodda mucaarad ugu weyn dowladda federaalka Soomaaliya ciidan ahaan iyo dagaal ahaan kala soo horjeeda waana midda uu ka xasili layahay guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana dowladda federaalka ay ka qabsanaadaha dalka ma ahan markii ugu horeysay oo heshiisyo noocan oo kale ay dhacayeen adduunyada waxaa ka soo dhacay heshiisyo waaweyn oo dowlado iyo kooxo dagaalamaya oo jabhada ay ku heshiiyeen laakiin lama oga sida ay arrinkan ku soo roobi doonto mucaaradka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay xiriir leedahay al-shabaab taliska nabad sugidda iyo agaasimaheeda ayaa lagu eedeeyaa inay gacan saar dhow la leeyihiin xarakada al-shabaab inkastoo aanu jirin ila madax bannaan oo arrinka xaqiijin kara qaybihii dhexe ee wararka warqa TV ayaan isla nimid markana Garowe madaxweynaha Puntland ayaa si adag uga hadlay khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkaas u dhaxeeya iyadoo wasiir Cawad oo fariin uu ka siday madaxweyne Farmaajo uu shirweynaha wada tashiga ee Puntland ka jeediyay maanta oo ay dad fara badan ka soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka wada tashiga ee ka furmay magaalada Garowe ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah Deni oo khudbadiisu ay taabanaysay dhinacyo badan ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday khilaafka maamulkaasi kala dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo tilmaamay in Puntland ay xoog saartay xalinta khilaafkaas balse dowladdu ay diiday sidoo kale waxa uu madaxda dowladda ku eedeeyay in ay markaasi baal mareen habkii lagu heshiiyay laguna markaasi dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in madaxda dowladda dhexe ay isku dayayaan inay qaataan awoodda oo dhan sida uu hadalka u dhigay waxaan xoog saarnay in xal laga gaaro khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo Puntland waxaana ka hadalnay arrimaha caqabadaha nagu balse wax walba waxa ay ka socon waayeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo markaasi marayay qorshihii lagu dhisay dowladdii iskuna dayay in ay markaasi awoodda oo dhan qaataan ayuu yiri madaxweyne Deni ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay inay dib u eegis ku sameyn doonaan xiriirka si xumaanaya ee Puntland kala dhaxeeya dowladda dhexe haddii aysan la imaan isbedel dhab shirweynaha Garowe ee maanta furmay oo mid xasaasi ayaa waxa sidoo kale ka qayb galaya wafuud kala duwan oo markaasi ay qayb ka yihiin wasiirro xildhibaano madax hore oo ay ka mid yihiin Cabdulle Gaas iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake dadkii isla shirkaasi ka hadlay waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku hadlayay magaca wafuudda dowladda federaalka Soomaaliya ee ka qayb galay shirka wada tashiga Puntland ayaa waxa uu baaqay madaxda Puntland inay tabashadooda ay u gudbiyaan si walaalnimo oo aanay markaasi waxyeeleen wadajirka Soomaaliya Cawad ayaa sheegay in mararka qaar ay dareemaan tuhun in Puntland ay si gooni wax u rabto iyada oo markaasi sheeganayso in ay tahay hooyada federaalka hase yeeshee ay ka rajeynayeen in madaxweyne Deni uu arrimahaasi wax ka bedelo mararka qaar waxaan dareennaa in Puntland ay si gooni wax u sheeganayso oo ay leedahay hooyadii federaalka ayaan nahay hooyadu ilmaheeda ay u roonaan jirtay Puntland waxa laga filayaa wax weyn oo waxtar dowladnimo Soomaaliya u leh ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Cawad oo Puntland ku bogaadiyay horumarka ay gaartay wasiir Cawad ayaa shirka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay u soo dhiibtay fariin ku aadan in ay Puntland soo gudbisato cabashada ay qabto si xal looga gaaro balse laga fiican yahay in khilaafka la gaarsiiyo meel aan waxba laga qaban karin waxa uu wasiirku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay aad markaasi u danaynayso
in mar uu madaxweyne dani u yimaado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo la dhiso kalsoonida wada shaqaynta dowladda federaalka iyo puntland si kastaba ha ahaatee puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaan bilihii u dambeeyey isku wanaagsanayn waxaana arrimahaasi asal u ah baa laleeyahay qaabka ay labada dhinac u dhaqmayaan qaybihii dambe ee wararka ayaan isla soo gaarnay saanad military oo aad u fara badan ayaa lagu waramayaa inay ku xayiran tahay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho muddo ka badan 2 isbuuc waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku xayiran saanad ciidan oo isugu jirta gawaarida gaashaaman ee dagaalka iyo agab ciidan oo ay leedahay dowladda Talyaaniga waxaana haysta baa leedahay waaxda canshuuraha garoonka diyaaradaha ee muqdisho sababtu waxay tahay in dowladda Talyaanigu ay diidan tahay inay bixiso canshuurtaas dhanka kale Talyaanigu waxa uu leeyahay waligeen waan la soo degi jirnay hubka iyo agabka ciidamada wax canshuurana lagama qaadi jirin arintaas ayaa abuurtay baa leeyahay ismarwa labada dhinaca ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya ayaa ka mamnuucday in ay dalka soo galaan dadka ka imaanaya 4 dal oo wadamada caalamka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka mamnuucday in ay dalka soo galaan rakaabka ka imaanaya 4 dal oo markaasi si ba'an u saameeyay cudurka coronavirus amarka ka soo baxay hay'adda dowladda rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus in dalka laga mamnuucay inay soo galaan rakaabka ka imaanaya dalalka Shiinaha, Iran, Talyaaniga iyo Koonfur Kooriya ee isugu jira muwaadiniinta iyo ajaanibta u dhashay dalalkaas sidoo kale waxa lagu wargeliyay shaqaalaha iyo duuliyaasha diyaaradaha in ay rakaabka qaar ay iyagu markaasi ka shakiyaan in uu hayo cudurka ay qalabka raadiyaha kala soo xiriiraan howlaheedana howlwadanada hay'adda duulista si wax looga qabto oo qofkaas loo karantiilo intuusan magaalada gelin intaas ayaan daawadeel kusoo gabagabeynaya wararkii warqaad TV tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo